kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa sabti haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa arrin ku saabsan wasiirada arrimaha dibadda ee qatar iyo iiraan oo ka wada hadlay sidii xaaladda gobolka loo qaboojin lahaa loogana baaqsan lahaa dagaal inuu ka dhaco gobolka oo ay sheegeen inaan cidina dano ugu jirin dagaal halkaa ka qarxa haddaba wararkaas waxaa lagu daabacay jariirada la yidhaahdo al-qudus waxay leedahay wadahadallo ayaa dhex maray iiraan iyo qatar kaasoo ku saabsan in la xoojiyo wadahadallada u dhexeeya washington iyo tahraan haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas caraaqji iyo ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani ayaa sabtida maanta ah waxay yeesheen wadahadallo dhanka telefoonka ah iyagoo wadahadaladooda diiradda ku saarayay xiisadaha ka jira gobolka sidii looga hortegi lahaa dagaal inuu halkaa ka dhaco iyo sidii loo sii xoojin lahaa fursadna loo siin lahaa wadahadallada u socda tahraan iyo washington marka dowladihii gobolka cabsi ah haysa kulligood wadnahay farta ku haya qatar horta ma ugu sii jirto qatar waxay taagantaha warnimay oo gantaalihiina nagu soo aadinin iiraanna waxay leedahay annaga saldhigga meeshaan ku yaala al-cudayd la yidhaahdo jugtaa ka gelinayna maraykanka meeshaa jooga maraykankana boqolaal askartiisaa saldhiggaa wuu kala cararay waataan xalay idiin sheegay marka qatar markii horena dagaalkii 12 maalmood saldhiggaas maraykanka waa la weeraray iiraan way weerartay marka hadda xaaladdu marka dowladaha aad wadnaha farta ugu hayay ku jirtaa qatar iiraan waxay leedahay laakiin adinkoo aniga ma idin soo aadaye maraykan hadduu isoo aado saldhiggaa uu degan yahay aan garaacaya inoo baasha saldhig kaliya kuma ekaanayse gantaalahan waa wiifayaan midaa inta iska soo gudbo amiirka hadduu u tago soo wareer maaha meesha wareeraa ka dhacaya war sidee waxu jiraanaad jirtaa marka xaaladdu halkaasay mare dowladaha gobolka oo dhan cabsida uga haysaa haddii dagaal dhaco meeshii ay mari lahaayeen oo baddii dhana xirmaysa wixii ay dibadda ugu imanayay iyo wixii ay dhoofinayeen khaliijka oo dhan hormuse ay baashu ka xirmi doontaa marka waa la dareemayaa inaan cidina dagaal halkaa ka dhaca uusan dan ugu jirin laakiin maraykanka dee nin waxaa hogaaminaya allow sahla markaasoo askarta kusoo wadaa meesha askartioo kusoo wadaa waxa maraakiib soo galaya waxa ciidan waa yaabaysaa marka dowladihii marka waxay leeyihiin xaalku in la dejiyaan rabnaa laakiin dee xaalku siduu ku degayaa inta xaalku sidaa yahay haddaba warkaas ayaa isaguna qaybta kore aan ku bilownay warka kale ee ku xiga ee soo kordhay waxaa ka mid a xog la helay oo soo dustay ayaa waxay ka imaatay wasaaradda gaashaandhigga hadda waxaa loo bixiyay wasaaradda difaaca maraykanka waaye wasaaradda dagaalka loo bixiyaa wasaaratul xarbi aa la yidhahdaa trump markuu yimida magaca laga bedelay marka wasaaradda dagaalka pentagonka ayaa waxay u gudbiyeen saraakiil maraykan ah oo ciidanka ka tirsan trump ay u gudbiyeen waxay yidhahdeen qorshaha dagaal midka ugu fiican makuu sheegnay dheh markaasuu yidhi maxay tahay marka horeba aayatullaahiga iyo wiilkiisa aan ka takhallusno ayagaan diiradda saaraynaa meelaha aan u malaynayna inay joogaan oo ay ku jiraan ayaan duqaynaynaa maxaa layidhi madaxaa laga dilaa aayatullaahi iyo wiilkiisaba haddii la dilo kuwa kale gacmay taagayaan waxaa qabaa saraakiil dagaalka haddaan galayno meesha aan ka bilowno madaxweyne taagay ninka aan raadsanayno ninka ha noqdo ninka haddaan dilno waddanka waa kala daadanayo qolo kale marka oo saraakiila oo la taliyaasha trama ayaa waxay leeyihin trama ku degdegi filinkan maxaa dhacay filinkan khatar kale u keeni karaa muxuu keeni karaa wuxuu keeni karaa waxay leeyihiin aayatullaahiga meeluu joogo maaloogi ama aayatullaahiga hadduu dhaawacmo maxaa dhacay wax allaale iyo wixii ay xarisul nimankan ilaalada kacaanka wax allaale iyo wixii ay ku difaaci karaan aayatullaahiga naftay agdhigaayeen
nimankaa farisiyiina layidhaha niman naxama hogaamiyadu waa u dhimanaya aayatullaahi waa meeshaan wax caadiya maka ah marka sheekadu waa sii qasmaysaa yidhahdeen marka mar walba meel naar meel qabow male ma maqash aayatullaahiga aad ama ha aadin meel qabow male meeshaan marba haddaa meeshaan gasho ayaguna waxay jugta ka gelin karaana ka gelinayan marka ninkii dhowr doorashaa loo keenay miiskay u saarayihin amarka bixi sidan waxaa loo sameeya dhehe taagiyihin ciidanka meesha waa ku jactadnay marka meesha wareeraa taagan haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray jiradda ra'yul yowm waxay leedahay Khamenei iyo wiilkiisa ayaa waxau noqon doonaa bartilmaameedka Maraykanka marka ugu horeeya oo ay weerarayaan Iran warkan waxaa soo heshay jiradda la yiraahdo Axios ee Maraykanka laga leeyahay waxayna daboolka ka qaaday tafaasiil cusub oo ku saabsan habka weerarka uu u dhacayo sida ay qorsheeyeen haddaba mowqican la yiraahdo Axios ayaa soo xiganaya mas'uuliyiin sare oo Maraykan ah iyo rag sare oo militariga Maraykanka ka tirsan waxayna sheegeen in Trump loo soo bandhigay in marka hore laga takhaluso aayatullaahiga iyo wiilkiisa waa tahay marka xaaladdu halkaasay mareen marka odaga asagaa laga rabaa inuu kala doorto weerarka iyo sida loo qaadayo iyo wixii oo dhan miiskiisa saarayina lee warqadii marka odaga asagaa laga rabaa si go'aan u gaari lahaa marka xaalku halkaasuu joogaa dhanka kale Maraykanku waxay keeneen fikrad kale oo lagu biirin doono wada hadallada Iran waxay tiri marnaba lagama hadlaayo sawaariiqdeeda halkaas dhig waxa laga hadlaayo waa uraniumka iyo nuclear sameysana iyo waxaasaan ka hadlaynaa nuclearka annagu waa haysanaynaa waxayna si nabadgelyo ayaan u isticmaalaynaa hub ma gaarsiinayno Maraykankuna muxuu taagnaa wax nuclear oo laydinku arki karaba male waa laydinka shakiyay nuclear dhan waa joojinaysaan muddo 10 sano 20 sano camal heshiisa la galaa nuclearka uraniumkana wadanka yaala rarta wadan kale u dhiibta war waxaas noo la imaanin marka meeshaasay kala taagnay hadda marka Maraykanku waxay ku leeyeen xoogaa waxaan sameeyay tanaasul sameeyay haddaba tanaasulka ay sameeyeen aan aragno wada hadallada soo socda ay doonayaan in markaa lagu wada hadlo jiradda ra'yul yowm waxay leedahay Washington waxay u ogolaanaysaa Tehran inay isticmaasho bacriminta uraniumka in yar oo macnaha oo aan gaarsiisnayn wax badan wax yar leedii ogol yahay inta kale waa qaadaysaan meel kale geenaysan ama wax kale laga sameeyna laakiin wax la awal waxay joogeen maba leedii ku arki karo hadda waxay raadeen wax yar leedii ogolaana oo aad hawlo yar warshado iyo u isticmaashaan iyo tamar iyo waxaan ka dhashataan saasaa loo isticmaala marka tanna waxaa leeyahay waa nidaam kale oo markaa Maraykanka uu ku doonayo in Iran uu markaa ku ogoleysiyo laakiin Iran waxaa leeyahay marnaba way diiday uraniumkeeda inay dibadda u qaado wax alla wixii ku saabsan hawsha waxay leedahay annagu hawshaan anaga qabsanayno hubna ma gaarsiinayno shaqo kale ka qabsanayna hay-adda atomigana waa isla ogolnahay markii la heshiiyo ha timaado ha fiiriso ha jeegarayso laakiin wax yaraan ku ogolaay kan waa anigu igu cabire tuman iyo rubac iyo waa igu sameeyay waxayga ana iskale lacag kala baxday uraniumka lacag qaali ku fadhiya marka hawshaas oo iyadana Maraykanka damacsanaa leeyahay wararkaas ayaa ugu waaweynaa kuwii ka soo kordhay ilaa intii aynu kala maqneen xaaladda gobolka bariga dhexe